kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkeena caawa qodobada ugu doorka roon waxaa ka mid ah Kenya oo gurigiisa kala baxday Dr. Ibrahim Bursaliid, ciidamada liyu booliska oo soo daayay dad ay shalay hore uga afduubeen deegaana ka tirsan gobolka Hiiraan, dowladda Soomaaliya oo si adag u beenisay warbixin uu qoray wargeys ka soo baxa dalka Kenya, ciidamada dowladda Soomaaliya oo soo bandhigay sargaal 10 sano ka badan ka barbar dagaalamaya xarakada Al-Shabaab, iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Wardheer oo qasan. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena caawa, haatana u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan. wararka imaanaya magaalada Nairobi ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ay gurigiisa kala baxeen Dr. Ibrahim Bursaliid oo ahaa aqoon-yahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. wararka arrintan ku saabsan waxaa warbaahinta u xaqiijiyay ehelada Dr. Ibrahim Bursaliid oo sheegay habeenkii xalay ahaa in gurigiisa ay ka kaxaysteen kadibna xabsiga u taxaabeen. wararka ayaa sheegaya in aan la ogeyn ilaa iyo hadda xabsiga uu ku jiro, waxaana socda dadaalo lagu ogaanayo halka uu rasmi ahaan la geeyey. ilaa iyo hadda lama garanayo sababta ka dambaysa xariga aqoon-yahankan Soomaaliyeed, laakiin waxaa xusid mudan in waayihii ugu dambeysayba uu sii kordhayay cadaadiska dowladda Kenya ay ku hayso siyaasiyiinta Soomaaliyeed, inkastoo Dr. Ibrahim Bursaliid uusan waqtigan ka tirsanayn dowladda Soomaaliya. ciidamada liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sii daayay dad maalintii shalay ahayd ay ka afduubeen deegaan lagu magacaabo Xudaywogle oo 35 kilomitir u jira magaalada Beledweyne. arrintan ayaa timid wada hadal dhexmaray mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ku sugan magaalada Beledweyne. saraakiisha ciidamada Ethiopia ayaa ballan qaaday in ay dabagal dheeraad ah ku sameyn doonaan, waxaa keenay in ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka ay u soo tallaabaan dhinaca gobolka Hiiraan dadna ka afduubaan. afduubkan ayaa xiisad ka abuuray deegaanada dhaca xadka gobolka Hiiraan ay la wadaagtay dowladda deegaanka, hase ahaatee waxaa muuqata in markiiba arrintan ay dhex galeen saraakiisha dowladda Ethiopia oo sheegay in ay dabagal ku sameyn doonaan arrintan. lama oga sababta ka dambaysa soo galitaanka ciidamada liyu booliska, hase ahaatee waxaa xusid mudan in deegaanadaasi horey marar badan ay ugu dagaalameen maleeshiya beeleed iska soo horjeeda. war ka imaanaya magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo ayaa sheegaya in ciidamada liyu booliska ay habeennimadii xalay guryahooda ugu daateen dad shacab ah oo ka mid ah dadka magaalada Wardheer degan, halkaasina ay u taxaabeen xabsiga. wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidanku ay aad u bahdileen uguna cagajugleeyeen dadka shacabka ah kadib markay xilli habeennimo saqdhexa ah ugu daateen guryahooda kana soo kaxeeyeen. dhinaca kale dadkii shacabka ah ee ku xidhnaa xabsiga weyn ee magaalada Wardheer ayaa la sheegayaa in ay saaka bilaabeen mudaharaad iyagoo xabsiga ku dhex jira, waxaana la sheegayaa xaalad kacsan oo ka socota gudaha xabsiga. dhinaca kale waxaan war sugan laga haynin xubno ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo maalintii shalay ahayd la xidhxidhay, kuwaasi oo aan la garanaynin sababta xarigooda ka dambeysay. madaxda gobolka Doolo iyo kuwa dowladda deegaanka ayaan wax war ah ka soo saarin xaaladda murugsan ee ka sii daraysa ee ka jirta Wardheer. jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya waxay aad uga xun tahay dhibka soo gaaraya hambadii uu ka tegay Waraabihii, kuwaasi oo filayay inay helaan xuquuqda ay u leeyihiin dhinaca hadalkooda iyo aragtida. sidaasi waxaa war qoraal ah bartooda ku soo geliyey jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ONLF. dowladda Soomaaliya ayaa si adag uga hortimid warbixin uu wargeys ka soo baxa dalka Kenya uga hadlay deegaanadii laga sahamiyay shidaalka dowladda Soomaaliya in ay ku soo darsatay deegaano ka tirsan Kenya. wargeyska warkan qoray ee Standard ayaa warbixintiisa ciwaan uga dhigay Soomaaliya oo iib geynaysa saliidda Lamu, iyadoo warkan uu wargeyska sheegay inuu arkay dukumentiyo magaciisu yahay Ofaya Soomaaliya 2019 ayaa laga soo daayay wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya oo muujinaya xirmooyin saliidda Lamu ah oo qayb ka ah kuwa ay dowladda Soomaaliya u soo bandhigtay maalgashadayaasha.
balse wargeyska kuma uusan soo bandhigin warbixinta dukumentiyada uu sheegay inuu arkay ee muujinaya dowladda Soomaaliya oo inay dhul ay dowladda Kenya leedahay ku darsatay warbixinta sahanka ee loo soo bandhigay maalgashadayaasha. Cabdiqaadir Abiikar oo ah taliye sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in aysan waxba ka jirin warka uu baahiyay wargeysta Standard oo ku sheegay xirmooyin saliid laamo ah inay dowladda Soomaaliya ku soo darsatay sahankii la sameeyay. Waxaan cadeynayaa in aysan jirin goob ka tirsan Kenya oo ay dowladda Soomaaliya ku soo darsatay warbixinta la xiriirta sahanka shidaalka, ayuu yiri Cabdiqaadir Abiikar. Abiikar ayaa intaasi ku daray in sahanka uu ku ekaa xeebaha koonfurta ku yaala ilaa iyo bartamaha oo ku yag deegaanada Galmudug, isaga oo mar kale ka digay in bulshada aan lagu marin habaabinin warbixino sida uu sheegay been abuura. Sheegashada Kenya ee ku aadan dowladda Soomaaliya inay warbixinteeda sahanka ku darsatay dhul ay leedahay Kenya waxaa horey u beeniyay Spectrum oo ah shirkadii sameysay sahanka shidaalka Soomaaliya. waxaa kaloo intaasi ay ku cadaysay shirkadda in aysan wax baaritaan ah ka sameynin aaga hadda kiiskiisu yaala maxkamadda dambiyada caalamiga ah. saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee Jubbada Hoose ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay soo qabashada sargaal ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen gobolkaasi. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Jubbada Hoose ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen sargaalkan oo muddo dhan 10 sano ka barbar dagaalamayay ururka Al-Shabaab. Ibraahim Lujende Maxamed oo qayb ka ahaa weerar dhowr ah oo ay Al-Shabaab ku soo qaadeen fariisimo ay dowladdu lahaayeen kuwa Jubbaland iyo kuwa Amisom, gaar ahaan weerarkii ugu dambeeyay oo xoogag ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaan fariisim oo ahaa ciidamada Kenya ee Ceel Cad ee gobolka Gedo. ma jiro weli wax war oo ka soo baxay dhinaca ururka Al-Shabaab marka laga soo tago sheegashada saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland. gobolka Jubbooyinka iyo Gedo ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay ka dagaalamayaan xoogagga Al-Shabaab, waana deegaanada inta badan lagu soo bandhigo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo qaarkoodna ay iskood isu soo dhibeen halka kuwa kalena lagu soo qabto howlgallo ay si wadajir ah u fuliyaan ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom.